Muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo sidii aad Alibaba aad wax ugu soo adeegan karto. Saaxiibayaal, marka haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkayga aad aragto, subscribe saar. Channelkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha ganacsiga iyo sida online-ka looga shaqaysto. Horta Alibaba haddaan idiin sharaxo intaan Alibaba aan aadin. Alibaba waa online marketing, waa suuq online ah. Dadka ay ka soo adeegan karaan wax kasta aad doonto ama aad rabtidna waad ka helaysaa. Marka Alibaba waxaa jira, waxay leedahay supplier fara badan oo ka shaqaysto oo weliba lagu kalsoonaan karo. Haddii aad danaynaysay inaad bilowdo ganacsi yar ama ganacsi weyn wuxuu ahaada, laakiin aad raadinaysay meel aad rabto inaad stock ka soo gadato, kuley suuqyada China waa wada garanaynaa. Marka Alibaba waa meesha ugu fudud oo aad qofkaad ka adeeganaysidna aad kala xiriiri karto, si fududna aad alaabtaa ugu soo iibsan kartid xilli kasta aad doontid. Marka suuqan Alibaba sidoo kale scammers waa leeyahay, tuugo waa leeyahay, laakiin waxay u baahan tahay inaad sidoo kale ka foojignaatid. Marka muhiimadda waxaa waaye Alibaba markaad ka soo adeeganaysid, qof kasta intuu galo meesha, waxay leeyihiin hataa application bay leeyihiin oo taleefankaada ka isticmaali kartaa. Qof kasta waa tagi karaa, waa gali karaa Alibaba oo waa ka soo adeegan karaa. Laakiin almuhiim waxaa loo baahan yahay qofka aad wax ka gadanaysid inaad aad ka ogaatid inuu yahay qof verified. Verified waxaa waaye qof muddo ku soo jiray, markay ugu yarta 3 sano, sidoo kale review-na uu haysto, review fiican. Marka waxaasoo idil ayaan rabaa inaan idin tuso. Taleefankayga ayaa application ahaan ula soo degay Alibaba, adigana ula soo degi kartaa oo waxaad tagaysaa Play Store-ka, waxaad qoraysaa Alibaba, kadibna asagoo application ahaan ayaa taleefanka kusoo gashanaysaa. Marka waxaan rabaa inaan idin tuso suuqaanito. Markii aad rabtid inaad raadsid, tusaale markaad rabtid inaad raadiso kalo taleefanada celiska ayaa rabtaa inaad taleefano aad iibiso, taleefanada celiska oo kale rabtaa inaad dib u sii iibiso, Alibaba waxaa helaysaa supplier. waxaa rabtaa oo kale inaad suuqan aad ka ganacsato. Marka waxaa rabtaa inaad bilowdid ganacsi yar, laakiin sidoo kale tusaale waxaa rabtaa inaad taleefanada dib u iibiso. Marka waxaa rabtaa Samsung-ga, iPhone-ada, taleefanahaas inaad gad rabtaa. Marka waxaad Alibaba ka helaysaa supplier ku bixiyo stock price, qiimo fiican oo adigana hodhow aad wax fiican saaran karto. Marka waxaa raadinaysaa qof supplier ah oo caadi wada xiriirtaan, kadibna alaabta ka order-garaysatid, kadibna alaabta uu kuu soo diro. Saas tan kale Alibaba waxay ku fiican tahay qofka direct lacag uguma diraysid. qayb waxaa jirta lacagta Alibaba la dhigto, waxaa maleynaa waxay ka goosanaysaa iyo waxay u baahan tahay $4 oo ay lacagtaada kugu haynayso. Si hodhow haddii alaabtii aad rabtay waqtigii aad rabtay kugu imaani weyso, ama alaabtii aad rabtay alaabka qaldan ay kugu imaado kalo, Alibaba waxaad weydiisan kartaa money back guarantee wax la dhahaa, oo lacagtaada si guarantee ah in dib lagugu soo celinayo. Marka yaan war idinku daalinin, muuqaalkana ma rabo inuu dheeraado. Hadda waxaan hore ama toos u galayaa application-ka Alibaba. Ila socod screen-ka ayaa meeshadii soo saaraya. Waayahay, hadda Alibaba tagaynaa. Alibaba.com waa kana. waa aragtaan wax kasta meeshan waa ka helaysaa. Taleefanada, fashionka, kabaha, saacadooyinka, everything oo baatid waa ka helaysaa. Marka arki kartaan oo maleynaaya waxaan waa home page-kooda, main page-ka alaabaha la soo dhigo waaye.
in marka aan ka gudubno waxaa rabaa oo kale hadda inaan raadsado taleefanada celiska. Hadda waxaan rabaa oo kale iPhones inaan raadiyo. waxaan leeyahay oo kale very owned iPhones, original iPhones unlocked. iPhones unlocked. dad qaar ayaa waxay ku leeyihiin refurbished. aniga refurbishedka ma jecli. refurbishedka waxaa waaye waa taleefanada refurbishedka waa taleefanada inta maxeed hore loo soo isticmaalay kadib dib u habeen lagu sameeyey ama bateri lagama bedelay ama wax kale lagu sameeyey. marka badanaa ma iibsado. waa arki kartaan midka ugu horeeya wuxuu ku leeyahay cheap price smartphone refurbished iPhone. waa taleefano dib u habeen lagu sameeyey. marka ani refurbishedka badanaa ma xiiseeyo because aan waxaan jeclahay wax iga soconaya hodhow iga gadmaayo. aniga hadda naftirkeyga waan ganacsadaa. waxaan ka ganacsadaa taleefanada. waan soo istoogtaa kadibna maxeed waan sii iibiyaa. midda koowaad aan idiin sheegaya horta waa inaad raadisaa. waxaan raadiyaa taleefon aan refurbished ahayn oona qiimo jaban ah. marka ila socdo. okay, midkaan waxaan u maleynayaa inuu original yahay. wuxuu dhahay wholesale smart. wuxuu ka wadaa grade A, taleefanada grade A-ga unlocked iPhones. ugu dhifta. okay, waa kana taleefanada uu wada haya waa 5S, SE, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 Pro. intaasuu hayaa. qiimihiisana wuxuu ka bilaabanayaa $89. meeshan hoose wuxuu ku dhahay minimum order. inta ugu yar ee wax lagu iibsan karo one piece ugu yar inaad hataa iibsan karto one piece taa lagu ogoliy. midda kaloo idiin sheegaya markay tahay Alibaba inay lacagta ku hayso waxaad ku garan kartaa ninkan userkan waa loo ogolyahay trade insurance. trade insurance lacagtaada Alibaba ku haynaysa. waad arkaysaa trade insurance protects your alibaba.com orders. aan ka socono. ninkan marka intaan wax ka iibsanin kala reviewgiisa fiirin. hadda reviewgiisa waa 5.0 waa fiican yahay maasha Allah. marka ani hadda South Africa joogaa. shippingkiisana badanaa alaabaha China xoogo qiimahooda waa raqiis laakiin waxaa laga yaabaa shippingkooda inay qaali tahay. ninkaa shippingkiisa hadda $43 waaya to South Africa. laakiin waxaa samayn kartaa waa discuss garin kartaan qofkan oo kale hadda supplierkan oo kale rabtaa inaad la xiriirtaa dhahdo niyo aniga taleefanada markasta waa iibiyaa taleefon aan u baahanahay saas waaye aan wada xiriirno kala rabo inaan dhaha. waxaan leeyahay send inquiry. chatna waa dhihi karaa laakiin waxaa ka fiican send inquiry aan u dirayaa. ayagaa kuu diyaariyey baqshadaad dir lahayd. haddaa u baahato waxaa ku dardari kartaa okay. Hi, my name is Bashir. I have a business. I'm a retailer. Okay, I will look forward for your reply. marka follow sii leedahay send inquiry leedahay. marka send inquiry markaa dhigid qofkan within 24 hour saa kusoo jawaabaya. marka sidaas loo raadsadaa. inquiry saas loogu diraa. qofkan uu kusoo jawaabo. markuu kusoo jawaabo baqshada hodhow meeshuu kaaga soo jawaabaan idin tusaaya. qaybtan ay ku qoran tahay messenger maaragtaan dhufanaysa. okay, waa kana baqshada hadda diray.
hadda ii soo jawaabaysaa waa aragtaan marka sidaas camal hadhow kugu soo jawaabaysaa WhatsApp numberkaaga siinaysaa sidaas wada xiriireysaan marka haddii ay jirto wax aan ka tagayna fadlan ila soo xiriira yani qaybta commentiga soo qoro suuqan waxaa idin leeyahay halaga adeegto lana soco muuqaalka xiga insha Allah taala waa mahadsantiin